السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال كسو دوادا النقاي ميدي يوتيوب اي فيسبوك بيج كيني او اد uga barateen inuu idin soo tabiyo warar sports oo xaqiiqda ku saleysan ama la hubo maantana idin soo tabinayo wararkii ugu dambeeyay ee sports waadna ku mahadsantihiin sida wacan ee aad ugu xiran tihiin alnaqaay media youtube iyo facebook page fadlan nagu caawiya subscribe-ka share-ta iyo comment-iska oo intaba muhiim u ah horumarkeena mahadsanidin haddana aynu gudaha u galno barnaamijkeena Chelsea ayaa saxiixa Raheem Sterling kaga guuleysatay kooxo badan bal aynu eegno shanta kooxood oo ay Chelsea kaga guuleysatay saxiixa Raheem Sterling iyadoo heshiis 45 milyan oo gini ah ugu dambeyntii kula soo wareegtay Raheem Sterling Chelsea ayaa u muuqata in ay ugu dambeyn sameynayso saxiixeedii ugu horeeyay ee suuqa xagaaga kadib markii ay heshiis shakhsi ah la gaartay Raheem Sterling Mirror Sport ayaa soo warisay Arbacadii in Sterling uu heshiis la gaaray Blues oo 45 milyan oo gini lagala soo wareegayo Manchester City waxaa la sheegay in wada hadalka gaarka ah ee Tuchel ay tahay tan ku qancisay Sterling inuu Etihad ka tago oo yimaado Stamford Bridge heshiiska ayaa la filayaa inuu dhaco marka Sterling ka mid noqdo ciyaartoyda kooxda Chelsea ee isku diyaarinaysa dalxiiska ay ku tagayaan Mareykanka xilli ciyaareedka cusub ka hor aynu fiirino shanta kooxood ee Chelsea iyo Tuchel ay garaaceen si ay u dhameystiraan ganacsigoodii ugu horeeyay ee xagaaga Liverpool soo laabashada Anfield ayaa loo arki lahaa inay tahay wax cajiib ah marka loo eego xaqiiqda ah in Liverpool ay tahay kooxda ugu weyn ee ay City ku xifaaltamaan horyaalka Sterling ayaa 3 sano ku qaatay kooxda sare ee Reds kadib markii uu ku soo biiray akademiyada kooxda ee Queen's Park Rangers markii uu 16 jir ah 2010 inkastoo oo bixitaankiisa uu ahaa mid murugo leh inkastoo Jurgen Klopp lagu tilmaamay inuu aad u jeclaa Sterling haddana lama oga sida dhabta ah ee uu ahaa xiisihiisa bixitaanka Divock Origi iyo Sadio Mane oo ay wehelisay arrimaha dhaawaca Roberto Firmino waxay la macno tahay in Sterling uu noqon lahaa mid lagu soo dhaweyn karo kooxda Klopp Real Madrid kadib markii ay seegeen Erling Haaland iyo Kylian Mbappe Real Madrid ayaa u baahneed xidig weyn in lagu soo daro kooxda Carlo Ancelotti Sterling ayaa loo arkay in uu yahay qofka buuxin kara booskaas gaar ahaan marka loo eego diidmada Ancelotti ee ah in uu isticmaalo dhowr ka mid ah xidigihiisa waxaa la sheegay in Los Blancos ay si adag ugu riixday saxiixa Sterling dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay iyadoo isha ku haysa xagaagan oo dhan markii uu arkay Gareth Bale iyo Isco oo baxay iyadoo Marcos Asensio uu raacayo iyo Eden Hazard oo aan booska lahayn Sterling wuxuu noqon lahaa ninka ugu fiican ee dib u soo nooleyn kara weerarkooda Barcelona ayaa sidoo kale doonaysay in ay kooxdeeda ku soo biiriso xidigo waaweyn kadib xilli ciyaareed niyad-jab leh Xavi ayaa damacsanaa inuu dib u habeen ku sameeyo kooxdiisa iyadoo la filayo inay yimaadaan dhowr ciyaaryahan inkastoo ay haystaan dhibaatooyin dhaqaale arrimahaasi waxay u badan tahay inay hoos u dhigeen rajadooda saxiixa xidiga heerka caalami ee dalka England inkastoo ay xaqiiqdii xiiseynayeen waxay isku dayeen in ay amaah ugu dhaqaaqaan isaga bishii Janaayo inkastoo aysan miro dhalin Paris Saint-Germain inkastoo kooxda reer Faransa Paris Saint-Germain ay buugaagtooda ku qoran yihiin Neymar Messi iyo Mbappe kooxda haysata horyaalka Ligue 1 ayaa isku dayeysay inay sameyso dib u habeen xagaagan si kastaba ha ahaatee waxaa la sheegay inay xiiseynayeen saxiixa Sterling kadib qaab ciyaareedkiisii wacnaa ee City Neymar ayaa laga yaabaa inuu baxo xagaagan iyadoo Sterling ay u badan tahay in uu u arko bedelka suurtagalka ah ka hor inta uusan ku biirin Chelsea Bayern Munich iyadoo xilli ciyaareedkii hore ay si xun uga hartay Champions League Bayern Munich ayaa sidoo kale doonaysay inay kooxdeeda ku soo kordhiso magacyo xidiga ah waxay hore ula soo wareegeen Sadio Mane kaasoo laga yaabo inay arkeen xiisahooda Sterling oo hoos u dhacay markii ay Chelsea booska ku soo cariirisay haddana aynu gudaha u galno wararkii ugu dambeeyay jaraa'idada waxa ay ka qorayaan suuqa Arsenal ayaa kalsooni ku qabtay inay Manchester United ku garaaci doonto loolanka loogu jiro saxiixa 25 jirka khadka dhexe ee Leicester Yuri Tielemans sida laga soo xigtay The Sun wargeyska ayaa qoraya in tababare Mikel Arteta uu aaminsan yahay in heshiiska 30 milyan ee Tielemans uu yahay mid adag inkastoo ay loolan kala kulmayaan Old Trafford iyo sidoo kale Newcastle isla wargeyska ayaa sheegaya in Arteta uu raadinayo in uu ka taqaluso 7 ciyaartoy si uu u maalgeliyo qarashaadkooda xagaagan kooxda ayaa hore ugu qarash gareysay 83 milyan oo gini Gabriel Jesus Fabio Vieira Marquinhos iyo Matt Turner laakiin waxa ay rajeynayaan in ay helaan wajiyo cusub Everton ayaa qorsheynaysa inay difaacdo xiisaha ay u qabto 22 jirka garabka ka ciyaara ee Anthony Gordon iyagoo u gacan gelinaya qandaraas cusub sida laga soo xigtay The Times Newcastle ayaa ku biirtay kooxaha xiisaynaya xidiga heerka caalami ee dalka England ee 22 jirka ah iyadoo
iyadoo sidoo kale lala xiriirinayo Tottenham. Tababare Frank Lampard ayaana laga yaabaa inuu isticmaalo qaab la mid ah habkii uu ku ceshtay oo uu kooxda ugu sii hayay 25 jirka weerarka uga ciyaara Dominic Calvert-Lewin sida laga soo xigtay Daily Mirror. saaxiibayaal wararkeena isboorti halkaas ayuu nooga egyahay maanta, waana ku mahadsantiin sida wacan ee aad ula socoteen ilaa dhammaadkii warkeena. Subscribe-ka, share-ta, comment-iska waa dhankiina. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.